dhegeystayaal sida aad la socotaanba 60 sano ayaa kusoo wareegatay markii ugu horeysay ee dhulka Soomaaliyeed xorriyad qaato. Haddaba laanta Soomaaliga VOA waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxane ah oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga ilaa 60 sano ee ka dambeysay. Ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee barnaamijyadaasi taxanaha ah oo aanu ku eegayno xorriyadda ka hor iyo wixii laga soo maray gumaysiga. waxaana barnaamijyadan soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Zahra Ciilano. taariikhdu dadkay bartaan dunida taariikhdu dadkay bartaan waxay dunaad mareen taariikhdu dadkay bartaan kulan wacan dhegaystayaal qaybta koobaad ee barnaamijyadan saxanaha ah ee taariikhda Soomaalida waxaynu sawir kooban kaga bixinaynaa nolosha dadku sidii ay ahayd ka hor intaanay gumaystayaasha dhulka iman iyo halgankii gobonimo doonka ee shanta Soomaaliyeed u dhamaayeen. gumaystayaasha ka hor Soomaalidu waxay ahaayeen dad badankoodu ay ku nool yihiin baadiyaha. doonigoodu wuxuu ku tirsanaa biyaha cirka uga yimaada iyo baadka dhulka uga soo baxa oo ay u dheer tahay cadka iyo caanaha xoolahooda. waxay lahaayeen xoolo isugu jira geel, lo, ari iyo fardo. duurjoogtuna waxay dhulka u joogtay si aan tiro iyo cadad lahayn. dadku wuu koobnaa manay jirin magaalooyinka waaweyn ee haatan jira. abaaraha waxaa la arki jiray teelteel 10 sano ama ku dhowaadba mar meel roob yaraani ka dhacdo. Soomaalidu may lahayn xuduudo kala qaybiya, manay jirin dawlado iyo maamulo siyaasi ah. waxaanay taasi la qabeen badi qaaradda Afrika marka laga reebo dalka Itoobiya oo ay boqortooyo xoog leh ka dhisnayd. balse Soomaalidu dhexdeeda waxay lahaan jireen hanaan maamul oo beela ku salaysan oo qaarkood ay lahaayeen boqorro, kuwo kalena lahaayeen suldaano, ugaasyo, malaaqyo iyo madax dhaqameed kale oo awood badan oo maamulo bulshada deegaankaasi. waxaanay lahaayeen heshiisyo bulsho iyo xeerar adag oo deegaan kasta noloshiisa ku maareeyo haddii ay deegaan kale isqabtaanna ay ku kala baxaan. dagaalada ugu badan ee degmada ka dhaca waxay ahaan jireen kuwo ka dhashay geel la kala qaaday, ceel biyood lagu murmay iyo godob gabar ka kacday. Soomaalida xilliyada waxa ugu ilbaxsanaa dadka ku nool meelaha xeebaha ah oo la kulmi jiray ganacsato shisheeye oo dhulka Soomaalida u soo doonan jiray badeecooyin ay ka mid yihiin fooxa ama beeyada, hargaha, geedaha qaar oo dun ama dhar laga sameeyo iyo manaafacaadka duurjoogta. horaantii ilaa bartamihii qarnigii 19aad dhulka qaarkii waxa joogi jiray ajaanib muslim ah oo aanay Soomaalidu culaad sidaa u weyn u qabin. reer galbeedkuna kamay cag madhnayn ee waxa jiray socdaalla ay ku soo gaari jireen dhulka xeebaha. Bashiir Sheekh Umar Good waa qoraa taariikhda kaydiye waxaanu haatan ku sugan yahay magaalada Washington DC. Zahra, adiga oo ku mahadsan barnaamijka adiga soo qayb gelisay waqtigii ay Masaaridu timid xeebaha geeska Soomaaliyeed 1866 ilaa 1874 waxay isku soo ballaariyeen ilaa Eritrea iyo xeebaha geeska Soomaaliyeed oo dhan marka laga soo bilaabo Tijoro ilaa iyo Cape Garfoy. markii ugu dambeyntiina sanadkii ugu dambeeyay ee qabsashadooda iyo isbalaarsigooda 1874 waxay qabsadeen magaalada taariikhiga ah ee Herer. inta ay joogeen haddaba Masaaridu waxyaabo badan bay soo kordhiyeen oo ay kamid tahay xeebihii marka ay yimaadeen inay u sameeyaan biyaha beebad ku qaadan oo pipeline ay sameeyeen, inay sameeyeen furdado dekedaha u sameeyeen, inay sameeyeen lighthouse ama nuubiyadaha waxa loo yaqaano, inay sameeyeen saldhigyo ciidamadu ku nool yihiin, inay sameeyeen guryo laban ka samaysan ama dhagax, iyo inay sameeyaan deyrada waaweyn oo ah kuwa guryaha lagu deyrto markii dambe magaalada sacaan ka noqday. marka ilbaxnimada caynkaasi ah ayay ku soo kordhiyeen. Masaarida oo ay xilligaasi isu wanaayeen ama ay gacan saar lahaayeen dawladii Cusmaaniyiinta ee haatan isku bedeshay Jamhuuriyadda Turkiga waxay ka baxeen dhulka Soomaalida. waxaana la sheegaa inay taasi u sabab ahayd daaqado kale oo meelo kale kaga furmay oo ka mashquuliyay joogitaanka dhulka Soomaalida.
1839 ayay taariikhyahanadu sheegayaan in boqortooyadii Ingiriisku ay qabsatay magaalada Cadan waxaana intii u dhaxaysay 1867 ilaa 1869 si rasmi ah loo furay gacanka Suez oo kaalin muhiim ah ka qaatay ganacsiga iyo isku socodka dunida. Talaabooyinkaasi oo isbiirsadayna waxay keeneen in wadamadii xoogga badnaa ee reer Yurub ay soo jaleecaan meelo ka baxsan dhulkii ay ku sugnaayeen. Boqortooyadii xoogga badnayd ee xilligaasi ka dhisnay dalka Itoobiya waxaa jiray xiriir ay la lahaayeen wadamadii reer galbeedka oo ay dana dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ka dhaxeeyeen, waxaana wadamada reer Yurub u soo horeeyay Faransiiska oo heshiis la galay hogaamiyayaashii bulshada canfarta ee deganaa xeebaha Oboq iyo Tojora. 1884 ayay wadamada reer Yurub ku shireen magaalada Berlin ee dalka Germany waxaana qaybsadeen qaaradda Afrika waana marka gumaysigu sida rasmiga ah u sharciyoobay. sanadkii 1887 Britishku dhulkii Soomaalida ee ay qabsadeen waxay u bixiyeen British Somaliland iyadoo Ingiriiska iyo Faransiiskuna ay 1888 kala xariiqdeen xuduudda ay ku kala qaybiyeen dhulka ay ku kala magacaabeen French Somaliland oo haatan loo yaqaan Djibouti iyo dhulka Ingiriisku qabsaday ee Somaliland. isla sanadkaasi ayay Ingiriiska iyo Talyaaniguna kala xariiqdeen xuduudda u kala dhaxaysa British Somaliland iyo dhulkii Talyaanigu qabsaday oo loo bixiyay Soomaaliya. xuduuddaasi oo sanado badan kadib si rasmi ah calaamada loogu muujiyay. jaanibka cusub ee dhulka yimid wuu ka duwan yahay Masaaridii, Turkidii iyo Carabtii ay dadka Soomaalidu maqli jireen, kuwooda xeebaha deganina ay la macaamili jireen. waxaanay Soomaalidu nacayb iyo jirdiid u muujiyeen. ajaanibkii cusba ee dhulkooda yimid waa kan Booba Yuusuf Ducaale oo ah qoraa iyo cilmi baaro ku sugan magaalada Hargeysa. gumaysigii Ingiriiska halka yimid waxaa jirtay markii ay yimaadeen in ay damceen inay dadka heshiis la saxeexdaan ay ku degaan dhulka iyagoo markaa la macaamilayay odayaashii iyo madax dhaqameedkii. waxaa dhacday in berbera la yiri ku noqdo badda, dooniyihii asaarneedeen fuula, dabeedna heshiis lagu kala saxeexday saan. odayaal aragti dheer oo hilaadin fog ayaa la dhigay oo la galay heshiiska ilaa heer ay ka gaadeen inay ku yidhaahdaan halkan dumarkiinu kuma dhali karaan oo ay tiina xaqiiqowday. marka sidaasay dadku ula macaamileen, sidaasaanay u jeclayn, sidaasay u arkeen inuu wax ajnabiya uu yahay. maxmiyad ayuu halkan u aqoonsaday oy ku heshiiyeen dadka laysmana dhexgelin, dhaqan iyo nololba way kala socnaayeen. dhaqdhaqaaqyada gumaysidiidka iyo xornimo doonku xilligaasi ayay la kowsadeen, balse marba itaalkoodu intuu ahaa ayay dirirayeen. waa kan mar kale Booba Yuusuf Ducaale oo inoo soo koobaa sida ay ku bilaabmeen ururadii gobonnimo doonka ee waqooyiga oo markii dambena qaarkood ay noqdeen xisbiyadii dhaliyay gobonnimada. Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan 1900 ilaa 1920 sanadoodba wuxuu la dagaalamayay si toos ah ula dagaalamayay Ingiriiska, si dadban waxay u dagaalamayeen gumaysigii Amxaarada iyo Talyaanigii. 41 goobood ayay fooda isku dareen Ingiriiska oo aan kuwii ugu mudnaa ka soo qaadi karno Afbakayle, Fardidin, Jidbaale, Daratoole iyo Dulmadoobe. markii xarakadii sayidku burburtay ee loo soo kaxaystay dayuuradaha oo markii ugu horeysay Afrika gumaysigu kaga dagaalamo magaalada Cadan waxaa ka furmay SIA oo Faarax Omar hogaaminayay, Somali Islamic Association baa loo jiray. dabeedna kuwo badan oo kale ayaa dalka gudihiisa ka furmay. waxaa furmay Somali Officers Unionkii, waxaa furmay Somali Old Boys Associationkii, waxaa furmay magaalada Boorama ka furmay naadigii ciyaartooyga 1939 kuma koobnayn Boorama oo kaliya iyo maxkamada Ingiriiska, laakiin xuduudu ka tallaabay oo waxay wada ciyaari jireen naadiyo kale oo iyaguna jigjiga ka dhisnaa oo beriga ciyaaru xoog ku ahaayeen. 1951 ayaa lagaga dhawaaqay magaalada Burco xisbigii SNL ee horseedka u ahaa gobonnimadii goboladii Ingiriis gumaysanayay. 58 waxaa ku soo biiray USP oo isbahaysi la yeelatay SNL USP khayriyada. waan filayay inay ugu horeysay Burco oo 35 la furay, Hargeysa 38 sidaan ku maqlay ayaa iyaguna doorkooda ku lahaa kaalinta gobonnimo doonka, waayo waxay noqdeen xarumihii ahzaabtii u dagaalamaysay gobonnimo doonka, gaar ahaan horta Hargeysa xasuustaayo dadka gacantooda ku dhistay, iska wax u qabsaa lagu dhisay. waa meelihii ay ka bilaabantay in lagu tirtiro ama lagu yareeyo saameynta qabyaalada oo ay dadku
magaalo ahaan reer Hargeysa, reer Burco, reer Boorame ay sidaa isu bartaan, ku arrinsadaan, ku wada joogaan. marka khayraadasina doorkeeda ayay ku lahayd. dhinaca koonfurtana waxaa isla markiiba bilaabmay beelo iskood isku abaabulay iyo ururo bulsho oo dagaal kala hortegay Talyaaniga. dadkaasi oo u badnaa dadkii deganaa dhulka webiyada ku teedsan iyo dadka banaadiriga loo yaqaano. bilowgii ururada casriga ah ee laga sameeyay magaalada Muqdisho waxaa ka mid ahaa urur dhalinyaro oo la baxay Xamar Youth Club oo 15kii bishii Abriil sanadkii 1943 laga aasaasay magaalada Muqdisho. 1943 bishii Abriil 15keeda dhalinyaro oo reer Xamar ah dhowr nin ayaa isku tagay dhalinyaro ah. Dr. Cabdulqaadir Cali Maxamed Boolay wuxuu ahaa qoraal Soomaaliyeed kana tirsanaa halgamayaashii xornimada Soomaaliya isagoo sanadkii 1946 ku biiray ururkii SYC ee marka dambe isku bedelay ururka SYL. intaanu dhawaan ku geeriyoonin magaalada London ayuu ka warramay aasaaska ururkii ugu horeeyay ee dhalinyarada ee magaalada Muqdisho ee Xamar Youth Club iyo dhalinyaradii aasaastay. nin la yiraahdo Axmed Shariif Ali Farkhadiin yaa gudoomiye u ahaa. waxaa ka mid ahaa Awees Dheer Diille oo ka mid yahay Xaaji Muxudiin Xaaji Cali, Sheekh Umar Xaaji Yuusuf, Maxamed Cumarey Maxamed Abuukar Abooki xoghaye sahay, Ikar Harakow Sheekh xubnahu ka mid ahaa oo aasaasiyaashiisa, Maya Xaaji Xuseen. intaasay ahaayeen intii hore meesha isugu timid. Dr. Cabdulqaadir Cali Boolay wuxuu intaasi ku daray in markii la diiwaan geliyay ururkaasi Xamar Youth Club muddo bilo kadib dhalinyaro kale ay magaalada Muqdisho ka bilaabeen aasaaska ururka Somali Youth Club. labada ururna ay markiiba bilaabeen wada shaqayn iyadoo qaar ka mid ah dhalinyarada ururkii hore aasaastay ay ku biireen aasaaska ururka cusub ee SYC. sanadkii 1946 ururkii Somali Youth Club waxa uu go'aansaday inuu isku bedelo xisbi looguna magac daro Somali Youth League, balse dawladda Ingiriiska ee markaasi dhulka ka talinaysay ay ku soo diiday calankii ay wateen oo midabkiisu ahaa casaan ama guduud. caqabadaasina lagaga gudbay in la isku daray calankii ay wateen ururkii hore ee Xamar Youth Club iyo ururka SYC. sidaasina uu ku noqday xisbiga caan baxay ee ku suntan gobonimada Soomaaliya ee SYL. Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag waa suxufi ruug cadaaya oo muddo dheer ka tirsanaa idaacadii Radio Muqdisho kana mid noqday mas'uuliyiinta tiyaatarkii qaranka. wuxuu iga warramay aasaaskii ururkaasi SYL. 13 dhalinyaro looma ogolayn xisbi siyaasi ah in ay samaystaan. hase yeeshee yara waxay sameeyeen xiilad. waxayna yiraahdeen waxaanu doonaynaa in aanu furano naadi aanu ku dhageysano akhbaaraha caalamka iyo dagaalada dhacaya. Ingiriisku waa u ogolaaday 15kii May 1943 13 dhalinyaro waxay ahaayeen Cabdulqaadir Sheekh Sakhawudiin, Maxamed Xirsi Nuur, Yaasiin Xaaji Cusmaan, Xaaji Maxamed Xuseen, Cusmaan Geedi Raage, Dheere Xaaji Dheere, Daahir Xaaji Cusmaan, علي حسن مصلح، محمد علي نور، محمد فارح يلولة، محمد عبد الله حياسي، هدو معلل عبد الله، إيوه محمد عثمان بارب. sanadkii 1945 markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee dunida wadamadii guuleystay waxay soo jeediyeen in habka gumaysiga reer galbeedka uu xilligaasi u jiray wax laga bedelo ama la soo afjaro. waa kan Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo culumta taariikhda Afrika iyo bariga dhexe ka dhiga jaamacadda Savannah State University ee dalkan Mareykanka. wuxuu ka hadlayaa aasaaskii ururka qaramada midoobay iyo xornimadii u soo isbaxday wadamadii gumaystayaashu haysteen, gaar ahaan kuwii wadamadii haystay lagu jabiyay dagaalkii labaad ee dunida. United Nations ururkaasi wuxuu soo baxaya 45 waxay ku heshiiyeen Mareykanka iyo Ingiriiska iyo reer galbeedka oo dhan. يعني عد الله على عدي حطوا إن الجارسية قبلنمو وإلا جارسية عدي ديار أنا وإلا فيها قبلنمو. فهون هانتي واحد ضعية دليل مثلا يكمل في لبنان أو كلا إيو ليبيا أو كلا ولا ليه ولا بيسمعوا مولك كرايا أو ليه أوكي حرب النهار يسمون من 1 year or 2. لكن واحد يريد قبلة كلا أو لبتهم يتفروا مش جارسين كلام قبلنمو عن السماء. واحد كم إذا كل رشة كي يتفروا إنه جارسين كلام كلا. waxaa kamid ah Soomaaliya
Tanzania oo kala kamid waxa kamid ah Cameroon ba kamid ah oo Jarmalka laga xoreeyay bas waxa la oranayaa aan weydiino bal dadka aan u tagno aan soo wareysano guddi baa la soo diraya oo UN ay leedahay soo ogaada bal soo ururiya aaraada dadyogaasi iyo xaaladooda siyaasadeed inay taagan tahay waxaa imaanaya Mogadishu January 1948 sideed iyo afartankii ayaa waxaa imaanaya guddigii oo loo yaqaanay guddigii afarta power waaweynaa Ruushka, Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska guddi masilaya oo loo soo diray inay soo ogaadaan bal Soomaaliya maxay rabaan in loo yeelo waqtigaasi markii ay yimaadeen magaalada Muqdisho waxa Soomaaliya ka jiray dhowr xisbi oo mabaadi'da guud ka sinaa balse ay jirtay fikrado ay ku kala aragti duwanaayeen waa kan mar kale Professor Mukhtaar leego xisbi la yiraahdo SYL way waxaa jira xisbi la yiraahdo HDM oo xisbi Development la yiraahdo waxaa jira xisbi la yiraahdo Conference oo alliances oo axzaab badan baa isu tagaysa oo saddexdaas ugu waaweynaa xisbiyadii xilligaasi waxay wafdiga u sheegeen arrimo aad u kala fog iyo afkaar kala durugsan marka loo eego muddada xisbi kasta soo jeediyey in xornimada la siiyo Soomaaliya waxaana wafdigii u soo baxday inaanay Soomaalidu waxba ku midaysnayn isla markaana aanay haatan xornimo diyaar u ahayn sida uu sheegayo Professor Mukhtaar guddigii warkaas oo ururin wuxuu kula noqonayo wuxuu leeyahay Soomaali waa taasay leeyihiin ma aha dad hadda diyaar u ah oo noqon karaya dawlad oo madax banaan marka waa in la gaaro intii wafdigaasi ku sugnaa magaalada Muqdisho bishii January 11 sanadkii 1948 waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay banaanbax ballaaran oo ay soo abaabuleen xisbigii SYL banaanbaxaasi waxaa ku dhintay dad badan oo Soomaali ah oo kamid ahaa taageerayaasha ururkii SYL oo ay kamid ahayd haweeneyda ilaa haatan la xusuusto ee Xaawataako waa kan Cabdilaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaad xisbiga SYL markuu ogaaday afarta dawladood iyo waxa ay doonayaan wuxuu abaabulay mudaharaad xoog leh waxa dadka badankiis ay aadeen fagaarihii uu ka socday dhagaxtuur dabadhilifyadii gumaysiga waxay soo weerareen naadigii SYL oo dad yar ay ku harsan yihiin markaa kadibna waa halkii lagu dilay Xaawataako 11 Janaayo 1948 markii Xaawataako la dilay oo la hubsaday in dadka dilay ay yihiin dadkii gumaysigu u soo diray SYL way shirtay go'aan bay gaartay wax yarun kadib markii dadka Soomaalida ay ku dhinteen mudaharaadkaasi waxa magaalada Muqdisho lagu dilay in ka badan 50 qof oo Talyaani ah oo magaalada ku sugnaa sida uu sheegayo Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar jaaroy waxa dhacaya leegadii stay hoyti u cadeysay inay macagtay Talyaaniga ayagoo guddigii oo afartii dawladood ay jooga markay yimaadeen January 11 waxay dilayaan 51 Talyaani oo waliba maanta ku jirto caruur iyo haweeney ku jiraan dilayaan geeska Afrika ku sii ballaadhay halgankii gobonimo doonka Soomaalida halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamuud Xarbi ayaa sanadkii 1947 dhinaca Jabuuti ka aasaasay urur gobonimo doon oo markii dambe isku bedelay xisbigii uu hogaamin jiray ee Republic Union Party waxa sidoo kale jiray xisbigii ay gudaha sida weyn ugu loolami jireen ee uu hogaaminayay Xasan Guuleed Abtidoon dhinaca Soomaali galbeedna markii Britishku ay qayb kale oo dhulka Soomaalida kamida ku wareejiyeen dalka Itoobiya waxay dadkii deegaanadaasi bilaabeen kacdoonno xoog leh oo ay tallaabadaasi kaga soo horjeedaan waana sababtii loo aasaasay xisbigii NUS oo ka hawlgali jiray Somaliland Dr. Ismaaciil Qodax oo kamid ah aqoon-yahanka ka soo jeeda gobolka Soomaalida ee Itoobiya ayaa inoo soo koobaya heerarkii halganka Soomaali galbeed ee gobonimo doonka July 1948 kolkii ogaadeen ay la wareegeen Howdy Reserve waxa lagu daray February 1954 dadka Soomaalidu mayna seexan markii ugu horeysay ee dagaal aad ay bilaabeen waxa kamid ahaa June 16 waxaa bilaabay waqtigaasi ururkii dhaqdhaqaaqa la oran jiray Ogaden Liberation Front waxaana ka madaxaa Garaad Maqtal Garaad Daahir waxa ka dambeeyay ururkii la aasaasay 1976 oo ururkii la oran jiray WSLF Western Somalia Liberation Front
uu isaguna hormoodka ka ahaa yuusuf deere maxamed sagaal ninkii la odhanayay taasi oo keentay dagaalkii ugu weynaa ee geeska africa ka dhaca ilaa iyo 1 milyan oo qof oo qaxootiya ayaa ku barakacay oo adu 1984 iyaa la aasaasay ururkan maanta jira ee la yidhaaho Uganda National Liberation Front kolkaa dadka Soomaalida tan iyo waqtigaasi urur midaysanna ilaa maanta may gaadhin laakiin maanta waxaad moodaa deegaanka Soomaalida dawlad u gaara Soomaalida oo madaxweyne Soomaali ay leeyihiin waxyaabo badan oo adoo guud ahaan la ogolaaday dhinaca Soomaaliya dadaal dheer oo ay xisbigii SYL ka galeen gudaha iyo dibadda waxa sanadkii 1950kii Soomaaliya loo ogolaaday in maamulku meel gaar ah oo ay qaramada midoobay ka mas'uul tahay la siiyo isla markaana Talyaanigu uu soo noqdo iyadoo ay dusha ka eegayaan dawladda ay qaramada midoobay guddi ahaan ugu soo xushay sida uu tilmaamayo Professor Mukhtaar Talyaanigu markuu soo noqday wuxuu u soo noqonayaa dawlad wasaayad weeye 54 wuxuu sameeyay doorashadii ugu horeysay oo dalka ka dhacdo oo dawladaha hoose municipality within 2 years 56 waxaa dhacaya wax la yiraahdo general election wakiil ugu horeeyay oo axsaabtu ay u tartamayaan 60 kursi 60 MP ay u tartamayaan leego waxay hadana ku helaysaa majority 43 ay helaysaa xisbigii mucaaradka xisbiyo wuxuu helayaa 13 kadib doorashadii guud ee Soomaaliya ka qabsoontay waxaa bilaabantay dawlad ay Soomaali hogaaminayso Talyaaniga iyo qaramada midoobeyna ay dusha ka maamulaan baarlamaanka oo loo yaqaanay golaha sharci dejinta waxa gudoomiye ka ahaa Aadan Cabdulla Cismaan laba gudoomiye ku xigeenna waxa loo magacaabay Xaaji Bashiir iyo Cabdiqaadir Maxamuud Soobe waxa ra'iisul wasaare ku meel gaar ah laga dhigay Cabdullaahi Ciise Maxamuud waxaanu soo dhisay xukuumad ka kooban dhowr wasaaradood sanadkaasi 1959kii wuxuu Soomaalida ugu dhamaaday iyadoo xamaasada gobonnimo doonka iyo xumadda israaca shanta Soomaaliyeed ay meeshii ugu sareysay marayso dhulka Soomaalidu degtay haatan ka tirsan dalka Kenya waxa ka jiray dhaqdhaqaaqyo xoog badan oo doonayay in sanadka 60ka ay ku soo biiraan Soomaaliya intaasi ayaanu maanta ku joojinaynaa qaybtii koobaad ee barnaamijyadan taxanaha ah waxaynu barnaamijkeena bari ku qaadaa dhigi doonaa xornimadii Somaliland ee 26kii June xornimadii Soomaaliya ee 1kii July 1960kii dhismihii dawladii ugu horeysay ee Soomaaliyeed iyo saluugii ugu horeynba ka dhashay saami qaysigii labadii gobol ee Israacay intaynu barnaamijka soo socdo maalinta bari ku kulmayno waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh si nabad ahaada